السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتباني سلام يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أتباني سلامي وأنا جو صور نقضي فيديو قال محربا إلى لبدي فيديو هالمرة عن إسرائيل because ما قرن كره حلقة صور نقنيه إن شاء الله because I'm not ما يوقف مركز توح سوق بيا سان إسكولها هاي فيديو قابتوب صاصة ما وحد بلشة لا شر قراء بي أيجي سقو قاطع وقت يقو قاطع مركا and I just wanted in aan hadda aan isdhaafiyo waxaa jira aan soo sheegay topiga aan doonayna nila wadaaga kale waxa weyn waxaa jira caruuro profile-koogu oo maaragtay wuxuu yahay maahine wax yani la geliyo profession educational profession aanan u qalmin profile-ka yihiin yani tusaale ahaan ilmo maaragtay autism ka qaba oo waxaa jira non verbal يعني wuxuu haystaa communication difficulties xiriirka dadka ula xiriiraya ku adag laakiin waa ilmo cognitive skillkiisu aad u sareeyo oo wax baran kara maadaama ilmahaas yahay ilmo wax baran karana just because waa non verbal oo ma hadli karayo mararka qaarkood wuxuu yeelanayaa like sensory overload oo wax badan uu sensitive ku noqonaya oo environmentiga mainstreamka waxa laga yaabaa inay يعني أو distress كنا قضاء وحيابهاس يدو على أجي وحلقيها إن لقيه special school كمركز لقيه المهاسي وحلقيها إنه ده أو هلا حباب بدنا نصير sensory activities إيو وحباب بدنا مركز distress نقضاء أو self regulation nervous system كيسا regulated أو كنا قلنا إني جيران لكن هذا واحد جرتا إن المهاسي مادامه special school كوي slow process yahay waxay qaab wax loo baray inuu ilmahaas xaqi wax barashadii hadana uu slow ku noqonay oo ilmo markii hore advance aha laakiin aw ilmahaas noqonay ilmo de wax barashadii loo ku noqda oo yani ana sidii markii hore u baranay aanan u baranaynin marka taa waa inaad ogaatid marka maadaama taa ogaatid waxaad xaq u leedahay hadhow toole inaad tiraahdo ilmahaygan profile-kiisi maaha meeshani waxaan rabaa inaan la geeyo de special schoolkiisi maxamed jada mainstream schoolkiisi inuu ku noqdo isaga oo one to one support markaa haysa because ilmuhu hadduu special need yahay one to one de mainstream isagoo dhigan one to one support helaya mararka uu u baahdo inuu self regulation helana de one to one buu haystaa oo waxyaabaha ilmaha yani deji waxa kamid ah in ilmuhu dibadda loo saaro education healthcare plan hadduu haystaan waxaa soo dhan de one to one buu haystaa xaq buu leeyahay dibadda in loo yara saaro fresh air meesha yara kusoo ciyaara iyalku ciyaarano kale la geeyo markuu caadi soo noqdana dee galaaska lagu soo celiyo maadaama ay kuguna hayahay taas oo de keenaysa mar walba inay wax badan sensitive ku noqdaan ama oo dhibo iskuulada special need wax weyn bay ka ridaan xataa waxay sameeyaan caruurtaasi waa caruur inta badan wax koobiyeeyo oo hab dhaqanka dadkii koobiyeen caruurtaasi so waxa inta badan dhacda inay behavior badan oo caruuraha dhigtay special need-ka hadii for example ilmuhu high function yahay ama different level ilmaha uu ka yahay ilmahaagoo kale inuu behavior ilmahaasi leeyahay ilmahani uu soo arko oo hadhow toolo koobi karayo because inta ugu badan waxay wax ku bartaan waa environment-ka ku jiraan iyo sida loola dhaqmo iyo waxay arkayaanba inta badan waxay leeyihiin visual memory wax la yiraahdo oo waxay arkaanba inta badan maskaxdooda ku sawirma ay ku soo celceliyaan marka taas ina maaragtay laga foojignaado marka waalid adiga ayaa markasta garanaya ilmahaaga wuxuu ku xiyay wuxuu ku fiican yahay ilmahaaga wax ma baran karayo mise wax ma baran karayo meesha uu roon waana wax yani waa stepkii ugu muhiimsanaa future-kiisa noloshiisa inaad ilmahaaga ogaato meesha uu ku roon yahay uu ku fiican yahay iyo meesha uu ku xun yahay si aad ugu doorato meesha aad geynaysid ee ugu wanaagsan haddaad ilmahaaga aragto inuu labada iskuulba au maaragtay auna ku fiicnayn oo labada iskuulba auna la qabsan karin inaad ilmahaaga aragto oo aad tiraahdo wallahi home school inuu sameeyo ilmahaaga ay fiican aan wax barto waad sameyn kartaa xaq baad u leedahay meesha environment uu ilmahaaga wax ku baranayo ku traffic garanayo oo how safe ku yahay ayaa muhiim ma environment uu ilmuhu inuu safe dareemo iskuulada qaarkood ilmuhu hadduu overwhelm ku dareemo oo dhibaato ku dareemo waxay ka dhigan tahay safe kuma dareemo ilmahaasi meeshaas maadaama safe ku ahayna wuxuu noqonayaa ilmo mar walba stress buu noqonayaa stress behavior baad ka dareemaysaa caruuro badan waxaa jira stress tax wax la yiraahdo leh
inuu ilmuhu indhaha isku qabto, inuu sanka dhaqaajiyo, inuu movement maaragtay jirkiisa aad ka dareento oo uncontrollable control karin. waxaasoo dhan waxay ka turjumaysaa ilmahaas inuu stress yahay insidekiisa. they trying to regulate themselves. stress takas wuxuu ku tusayaa in ilmahagan environment-igu au joogay au very distressful yahay. waxyaabahaasoo dhan waa inaad u fiirsato. marka mar walba aan ka fiirsano ilmaheena meesha aan geynayno. wallahi anu waxaan jeclahay caruuraha doonay especially hadina hadlaynin inay si fiican kugu sheegin wixii dhacay ina guriyaha la iska haysto wax lagu baro waalidku bi ay dariiqa oo wax ku bari kara oo ku baro una dadaalo investment geliyo caruurta deynidina investment iyo lacag la geliyo si ay wax doonayaan iyo waxay u baahan yihiin si loogu sameeyo sida activity-yada ay jecel yihiin si loogu sameeyo swimming oo kale waa therapy buu yahay in waxay ku fiican sida ICT gadi ku fiican ICT centers aad geysido soo bartay adoo ilmahaagi maaragtay de fangareynaya and you have to be maaragtay able inaad waxaas oo dhan u sameyn karto walaayda because the right environment waa meesha ilmahaaga wax badan oo maaragtay de noloshiisa wax badan ka bedelaysa inaguna isku fahmaysin oo isku soo dhawaanaysin. you have to be more close to your child. ilmahaaga wala inaad aad ugu dhawaatood fahantid baahidiisa deeply waa inaad u fahantid waxa u fiican iyo waxa u xun labadaba inaad soo kala ogaatid walaayda. there's times oo inataydeer ay guriga anwan wax ku tagi jiray oo waxa weeyaan ay dugsiga tagi jirtay oo mar aan ka soo hadlan aan Afrika joognay bay ahayd waqtiyadii nolosheeda ugu fiicnaad baahayda soo mara walaayda dhan walbana isbedel ay samaysay in progress aad iyo aad weyn ay samaysay wallahi ma sha Allah. and waa environment-iga you have to know ilmahan inuu the right environment joogo waa inaad fahantid right schoolku joogo ma right environment you have to know. marka saasan insha Allah in ilaahay wixii kale aan rabo inaan nila soo wadaagi doona aad baad ma santiin dhamaantiin intaan dib dambe u kulmayna waan salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.